بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بام هذا كلام مركب كوباد مركب لبعض وحنا ربع إن إذن كمارتي ورب حين إذن كسيه شقدي نوب باللعبتي ومعها نوع سعتي قصة سنة حلستا حل باندا برلمان كلبعض يقل مدوب سيد الله سعتان بهوش سوي سعتا سيد قروح بدن أو في عن أو مارتي مدر يقل مدوب أي كودا نالونس أي أسعتا حنا رجينا إن هذول من أنت لمن إن النهار ما اسمه ترمي دونته meel fiican oo aan ku faani karno gudi ahaan iyo dhammaan reer galmudug ahaanba ayay noo maraysaa waana ka guul gaari doonaa hadduu alla idmo wixii jira oo dhibaatooyinna waa la isla tarxan bixi doonaa waa la isla xalli doonaa waa la wada fariisan doonaa waana la isla wada meel dhigi doonaa waana laga heshii doonaa hadduu alla idmo arrinta ku saabsan yaa oday ah iyo yaa wax soo xulaya waa arrin haddaan nahay gudiga farsamada iyo maamulida galmudug aan mar hore go'aankeeda ka gaarnay inaynaan haba yaraatee wax saameyna aan ku yeelan liiskaasi wuxuu ku qotamaa ama uu ku taagan yahay odayaalkii reer galmudug ee saxiixay cadaado 2015 halkaas ayaa beesno ah ayagaas ayaana laga duulayaa dabcan cidii aan ku jirin liiskaas oo markaas aan cadaado ku jirin haddana kuma jiri doonto dadyaw ay wadahayaan maaragtay in liiska ayaan ku jiray oo laga saaray واجران لكن waxaan u sheegana waxa waaye inay markii horeba aysan liiskaas ku jirin liiska cadaadana waa la yaqaana waana la wadaagi doonaa dhammaan bulshada reer galmudug ummadda Soomaaliyeed iyo cid kasta oo loo buuqaysan waa liiska yaqaan waxaan ah processkan muddo dheer ayuu soo socday waxa intaas u soo socdana waxay ahayd in maaragtay wax la turxaan bixiyo in la helo galmudug loo dhan yahay in la helo galmudug qof kasta oo iska arko in aan cidna laga maarimin in qof kasta oo muhiim yahay oo reer galmudug ah la isqanciyo wixii tabashooyin ah ama cabasho ah ay qol qabta laga xalliyo laga wada fariisto laga doodo go'aan midaysan laga wada gaaro intaas ayay waxa ahayd midii ay madaxda dawladdu maartay iska soo daba laabanayeen maalmo badan oo aysan gobolada dalka Soomaaliya joogin ay u joogeen oo ay maaragtay ku xalinayeen mashaakilaad iyo tabashooyin ay qabeen tii ugu dambeysay ugu muhiimsanaatay ahlu sunna ahayd ayadana sidoo socotaan xal buuxa oo waafi ayaa laga gaaray haddii ay jiraan cid kale oo wax tabanaysana sidii hore la isku soo qanciyay oo looga soo heshiiyay arrimo aad iyo aad muhiim ah ayaa kuwana looga heshiin doonaa la iskaga xalin doonaa la isla tarxan bixi doonaa insha Allah waxaan wada rajaynaynaa waa galmudug midaysan oo isku dan ah oo isku tala iyo tusaale ah